يدب هبل lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee madarka magaalada Burco ayaa wasiirka wasaaradda dawlista wada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo socdaal maalmihii ugu dambeeyay ku joogay gobolka Togdheer waxa uu kormeer ku soo maray garoonka diyaaradaha ee madarka magaalada Burco halkaas oo xukuumadda Soomaaliland khaasatan wasiirka dawlista wada Soomaaliland iyo saraakiisha wasaaraddaasi ay ka bilaabeen hawlgalo ballaaran oo deer iyo fence lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee madarka magaalada Burco wasiirku waxa uu kormeer ku tagay isaga iyo saraakiil kale oo kamid yihiin maamulaha madarka magaalada Burco Cabdirasaaq Saciid Axmed iyo gudoomiyaha guddiga dibdhiska madarka Burco Sheekh Cali Mawlid halkaas ay soo indheeyeen deerka iyo fence-ka lagu sameeyay ama xaydaabka lagu sameeyay madarka magaalada Burco iyadoo isku geynta guud xaydaabkaasi lagu sameeyay ay dhan tahay 9 kilomitir 4 kilomitir iyo badh oo ah deer iyo 4 kilomitir iyo badh oo fence wasiirka dawlista wada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi halkaas waxa uu warbixin ka dhageystay saraakiisha madarka magaalada Burco iyagoo sheegay garoonku iminka inuu isku bedelay garoon caalami ah waxaana rajo wanaagsan ka muujiyeen in garoonkaasi diyaaraduhu ay isticmaali doonaan markii magaalada Hargeysa daba uu soo gaaray wasiirka dawlista wada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayuu xafiiskiisa waxa uu kula hadlay warbaahinta maxalliga waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku guuleysatay in garoonkii diyaaradaha ee madarka magaalada Burco xidhnaa dib loo furo oo dib loo casriyeeyo kaasoo lagu sameeyay deer iyo fence wasiirku oo ka hadlaya waxa uu yiri laba waji ayaa dhamaaday waxa lagu guuleystay ilaahay idamkii in dhammaan dhulkii madaarka la soo celiyay oo gacanta lagu dhigay waxa kale oo lagu guuleystay mashruuca qaybtii labaad oo ah in la dhameystiro sida aad arkaysaan dhismihii deyrkii aad u dheer oo ka kooban 9 kilomitir oo isugu jira ilaa 4 kilomitir oo deyr leban ah iyo biro xagga sare kaga samaysan iyo ilaa 4 kilomitir iyo badh isaguna ah markuu fadida dibadda u baxo fence ah ka waxay aqoonsatay markay safar ku yimaadeen inuu deyrkaas yahay security fence sax compliant ku ah kuwa madaarada caalamiga ah labada waji waa dhamaaday maanta waxa aynu u qalab qaadanaynaa wasaaradda dawlista iyo guddiga dibdhiska madaarka Burco waxay iska kaashanayaan sidii madaarka looga sameyn lahaa madaar runway ah oo ay ka duulaan diyaaraduhu shaqadiisana dhaqsa loo bilaabi doona wasaaradda dawlistu siyaasad bay ka leedahay madaarada kala hormarintoodana laguma kala hormariyo kala jeclaysi iyo wax lamida laakiin waxay leeyihiin istaraatiijiyad madaarka caasimaddu xoogga aanu saarayna xikmad buu xambaarsan yahay madaarka caasimadda madaarka magaalada Berbera oo ku yaala marsadeennii caalamiga ahayd xikmad buu xambaarsan yahay ganacsi iyo wax la mid ah madaarka magaalada Burco wuxuu xambaarsan yahay xikmad ganacsi oo wasiiradii xoolaha ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ugu weyneyd waqtigii hore wuxuu waraabiya gobolada bari oo dhan dhul ahaan marka xikmadaha laga duulayaa ma aha hiblaayo marka la ascaanood iyo ergaabiyo iyo boorame laga hormarinayo iyo kala baydh xikmadeedu ma aha wala jeclaysanayaa wuxuu xambaarsan yahay muhiimad gaar ah oo uu salka ku hayo sida kuwa horeba ay ugu horeeyeen meel walba marka waxaanu ku tala jiraa inaanu runway 3 kilomitir dhisno mustaqbalka oo ay iska kaashanayaan xukuumadda Soomaaliland iyo guddiga dibdhisku maalintii aanu dhigaynay dhagaxii koowaad ama aanu cagafyada gelinaynay dad badan ayaan aaminsanayn ama aanay dubaaqooda gashanayn in madaarka dhulkiisa la soo celin karo sirigna lagu meerin karo waa taahir gashay wixii uu ragu kaco ilaahayna rumeeyo ee fududeeyo way rumoobaan maantana waxaan rumaysanahay inaynu arki doono isagoo